اسكو دبالوديا لحدا إشيدا تدلوركايغا جعل باينتا هوستك قالما ميالدا هردو ميالغا انتو سولغو يديدي الليلين ميسي dadkayle iskaga leexay عليكم السلام دمان شعبك الصوماليين soo dhawaada meel kasta joogtaan markay tuba tahay waa tolay laba kala tago soo dhawaada bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala sayyidina maxamed wa salaamati dمان shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogtaan waxaan xalay idin balan qaaday insha Allah biidnillaahi kariim habeen dambe oo caaw waqtigu ku beegan yahay إن شاء الله بإذن الله كريم أنا كهذا الدونه أرنتا كسر عصبوناتي حقير أما حاسد خوف نقضي ومد الصوماليين دوها وين هذا إنك لبح عبد المالك موسى الله وأنا اللي يسوم من الشيء وحال يسوم من الشيء قف كولالك مركب وحقق كنت هاجي هاي والله ليا إلهي سبحانه وتعالى يا رسول صلى الله عليه وسلم بين الفري ولالك انصر أخاك ظالما أو مظلوما ولالك أهيل قردرنا أهيل عبد المالك موسى عبدالله شلي والله قردرنا وأنا أهيلني أولا بروان بانكاها بل سوحا ربانتانا عبد المالك موسى عبدالله يقضب بدي سوقني قضب بان سدو التاقيا وحوال بنا أدلاء مرخاتية عالضيين بان ميسك صوصاريا أنا قدرت كان مسكا هانتا تعي اسكا هادلي بلا حكمه ku hadla ama qof iska qabsadmay cadeyn cadaalad baan falaya oo waxaan isku dayaa wax walba qodob inaan soo durtaago eegi waxaan halkan ugu hambalyeynaya abwaan axmed qorane aabbo Soomaaliyeed oday Soomaaliyeed abwaan Soomaaliyeed nin geesi ah oo xiniye badan oo xiniyihiisa fuulay oo waxa weeye taagan waqtigii Sayyid Abdullah Xasan iyo ka hor dadkii magaranaysaa Soomaalinimadu 60kii wixii ka horeeyay dadkii noolaa xilligoodii u noolay aad baan horta u salaamaya abwaan qoran abwaan axmed qorane aabba Soomaaliyeed oday Soomaaliyeed nabadoon Soomaaliyeed aad baan u salaamaya aad baan ugu hambalyeynay intaan Cabdi Maalik arrintiisa u galin waxaan kaloo halkan aan doonayaa inaan ka sheego Naciimo qorane نعيمو أبوان قرنة هل أبور أبوانة صوماليات نعيمو أبوان أحمد قرنة أنا كنت واحد أقوان وما نحين مركي يهرب لكن أبيه دوان قين سوغان تساندقي سنشري صفة عمان وقع نعيمو وحان كبرتين قف إن أنا صاحب النهاي وسوغان وداق النهاي صاحب دونا عن النهاي لكن وضيقات ضيض كل دوان تهاي لكن ودادا وين عن أسعنا ميل قرأ وطهاي وأبوان شابر رياض فكرك وأنا كسبنا لكن نظام كان كل يردوني مركي جوه رسالة كان نعيمة قرنة فضل نوشر قرية نعيمة قرنة وحيوه الرئيسي أبوان شابر أيام بيتك سبوا أركي سوغان تيدنا هالكسان كل جيست ونقو أركي وجبر صوماليات وشرف له وأبوان ده وتعدل كذي ضد كذا ودليرا إيجي ويحرنت هاي وحلقوا حري الصومالي لا ديانك الصومالي أنا ومامك الصومالي أنا مجال هرجيسك وحرنت أيامها النوان مغلي إن لا حري ومرور بحكوا أركي يسوي كذا بس سيدا على هاي وحنس لها تقول لي عمر وأنا صوتني هذا واحد يبعتها أويني متشران يان عن سير كلا يوح كلا يبوق كلا لصيك عنين مركي أنا أركي أبيه كنت قاعد بنروح ماضي سيدا مقرن ساي ولو دباتي ريركا قبل مسكين تالله حري أنا وحبك جيسن aad baan waxaan u qalcay aabaheed sida wanaagsan ee kartida leh dadnimada leh oo hadlay wuxuu yiri Soomaalinimadu qofka haduu Soomaali baan hayiraado ama qadiyo Soomaali weyn baan aaminsanay qofku diinta kama bixin biir wax badan buu ka hadlay kilibkiisa waxa uu leeyahay Cabdi Gentleman ayaa xalay mar soo dhigay oo ka dhigaysan meel kasta uu yaala wuxuu yiri Soomaali way soo wadaysay waxa weeye qofka haduu Soomaali weyn sheegtana de ma aha ama qadiyada aaminsan Soomaaliland aan wax u dhimin ma aha inuu diinta ka baxay وكلام صحيح Soomaali weyn baan aaminsanay waana ku taageersanay waana aaba Soomaaliyeed abwaan Soomaaliyeed aad iyo aad baan u salaamay eegay inta markaan ka soo gudbo abaalaawaha qofka abaalaawaha ah ilaahay ma jecla
آذنه سنو مجعل قفك هدانو أبا الحين إلهي مجعل آذنه سنو مجعل قف أن إلهي كشكرين قف أن قف بني آدم ولاك سو ولا وقال ما هتصل هدق إن إلهي وما هنقو هذا عبد المالك وقفنا وكما عبد المالك عبد المالك مسوع ألدون وحوها نسا ما فرح oo xaweeye gobolada waqooyi hawsha ka soo bilaabay gaar ahaan Burco kadibna Hargeysa u gudbay shacabkiisa iyo ummadiisa Soomaaliyeed waxa weeye wax uu qaban jiray waana ku jeclayn waana ku taageersanayn waana aaminsanayn fahmaysa waana ku dagaalan Abdulmalik waa la xiray waxaan doonayaa inaan Abdulmalik shakhsiyadiisa iskor taago deedna qodob u soo dhigo wax Allah iyo ummadda Soomaaliyeed ku sameeyay Abdulmalik waa la xiray anu waxaan ahaa shakhsigii ugu qayla dhaanta badnaa ama haddaan nahay midnimo qaran ugu qayla dhaanta badnaa hadday suugaan noqoto hadday live noqoto hadday barnaamij noqoto hadday xaflad noqoto hadday noqoto kilib la duubo dhan kasta social media midnimo qaran haddaan nahay dadka ugu qaylada badan ee Abdulmalik Muuse Coldoon qaynay Abdulmalik Muuse Coldoon waxaan ugu qaylinayna xaq bay qaar badan oo reer tolkiisa oo in maadeer yihiin ayaa aniga soo garaacay oo ilaha reer qansax baa tahay maxaa ka galay Abdulmalik Muuse Coldoon waa reer qurac annaga xidhanay anagoo reer qansax adiga who are you adigu qof ma tahay boodharo maxaa se ka galay in adeerkayo weeye maxaa ka galay oo ugu doodaysa ugu dagaalamaysa waxaan ku yiri anigu waxaan ugu dagaalamay oo ugu doodaya xaq baan ugu doodaya waxaan ugu doodayaa inuu yahay nin Soomaaliya wanaagsan ummadda Soomaaliyeed ee baahida iyo dhibaatada haysato u gargaara taasaan ugu doodaya waxaan ugu doodayaa Soomaalinimo waxaan ugu doodayaa Islaamnimo waxaan ugu doonayaa wanaagga iyo sharafta uu waxa weeye sameeyo baan ugu doodaya ayaan oran jiraan kuwa aanu saaxiibanahay oo isaga isku reer yihiin ayaan isku dagaalamay oo aan ku kala dhimanay oo yirniyo badda ka bax baddaas kuma khusaysan meynaadeerka maxaa ka khusayay eegi shaquraad waxa ka bax Abdulmalik aniga waa walaalkay social media way ku jirtaa YouTube kana way ku jirtaa page kastana way ku jirtaa kaygana way ku jirtaa aniga waa walaalkay xaq buuna ku taagay eegi waana ugu hiilinay maanta marka Abdulmalik Muuse Coldoon Abdulmalik maanta bukaan socod buu noqday irbadii qabyaaladana gaadhay iyo xanuunka iyo qoboleysiga iyo maamul goboleysiga iyo federalismka iyo qurunka qof kasta oo ummadda Soomaaliyeed wanaag loo galan wanaag qof kasta oo ummadda Soomaaliyeed wanaag u gashana weelka ay wax ku siiyaan ugu xaara Abdulmalik Muuse Coldoon wuxuu yiri niciimoy calankan aad u ooyishid bii cadaalad darra lagu falaa eegi cadaalad darra lagu falaa bii calanka aad u ooyishid wuxuu yiri dadkaagu waa inay iska kala dhex arkaan niciimo qoranay marka intaad Muqdisho iyo Koonfur iyo Soomaaliya aad aadi lahayd si qaawan baa caawa loo wada hadlaya aniga Abdulmalik si qaawan baan wada hadlaynaa shalayna xaq baan ugu hilinay maantana xaq darro wado baan kaga soo horjeedaa ilma xayawaan kuwa ay soo qoray Abdulmalik niyo saaxiibkaagu aha shalay adiga amaanay hadalka walaalkaana anu horta waxba ka soo qaadi maayo xaasha wujuud oo dadkaas uu la mid yahay de shacibka meelaha wax soo qorqora shalay waa run shalay ana u hiiliyay ana u qayliyay eegay ana u dagaalamay anagoo midnimo qarana baanu meel walba isu taagnay cid walbana anaga u canjarafaynay cid walbana anaga ula dagaalanay Abdulmalik Muuse Coldoon laakiin maanta tuu sameeyay waanu ka dagaalamay kula dagaalamayaan eegay niciimoy dadkaagu weyn iska ka dhex arkaan gobolkaagu weyn iska ka dhex arkaan وين قولك وقوي قلبك سكا دحركا وين هرجيس سكا دحركا وين تولكا سكا دحركا بو بيجكيس كو سو قور ايغي cid caayday ma jirto wuxuu yahay oo wuxuu uu sheegay uu buu banaanka u soo saaray uurka wuxuu ugu jiray Abdulmalik buu banaanka u soo saaray war markaad leedahay weyn gobolka uu iska dhaxarka ma reernimo iyo qabyaalad iyo maamul goboleedsi baad waday calankan aad leedahay cadaalad darra lagu falay kii ku soo daayay ma aanu hayn halkaas aan caaw ka sheegay wallahi billahi wa tallaah Abdulmalik Muuse Coldoon waa lagu xiray Abdulmalik Muuse Coldoon waa la xiray shacab uu ogaada ciida soo deysana ana idin sheegay caaw halkaas aan ka qaylin midnimo qaradaan nahay oo kilibkii aan soo duubay wuxuu ahaa kilibkii madaxtooyada galay ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo la hordhigay buu ahaa ee Xasan Cali Khayre la hordhigay buu ahaa ee aanu leenahay hadaan nahay ummadda Soomaaliyeed
وإن لسهودة يا عبد المالك هو يوم صومالي ودبعتي سنبو بريسك ومضى وسوق على إسرائيل وسولي بيجر ملاحظة ذلك الصومالي مدحوينا يريس الوزارة ما دام بوق يريشري مدحوينه 6 صبح لها الله إنك اللي يعضو إسماعيل عمر قيل لي مدحوينها دلك جبوتي مدحوينها دلك جبوتي أيو لها الله ويري إسماعيلو نكاسان أباهنا حي إن دبت الله صار إسماعيل عمر قيل لي وحو وعي والله الله مدحوينه مامك الصومالي لا يسجل رسيلين وحو يري أنا إسماعيل أقول لها الله يسودا غلطون وحو يري سيلايو وحن بحنا يا عفس بان دوام بحنا يا عفس كاسان كوسو ديني عفس كاسان كوسو ديني يا أون كوسو طريا اللي هو واحد تجي هدرمو واحد تجي وي إنا نشجنه أون عضيننا عدمالي مسؤول درسيا كان هذا أنا كانت عايش يوم عاصمتنا يوم دولتنا عايش وتيش شلي أديك وحكادكتي إن عالدونه ولي بس هو فما نقول هذا سهو فما نقول هذا يا كما عشرفيني وحنا هنا كادي ما سهو فما نقول هذا يا علن كان وكيش له وحكادي حاسدنا تاي حقيرنا ونكون شيء يا نعيمة أبوان قرني قد كي كوشرتوا قد كتشلي